فجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. maxay yihiin sababaha colaadinta gabadha talyaaniga ahayd ee dhawaan laga sii daayay Soomaaliya? Al-Shabaab maxay u isticmaalayaan lacagtii ay madax furashada uga qaateen gabadhaasi talyaaniga ah? Warbixin aad u xiiso badan ayaanu arrimahaas idinkaga haynaa. gabadha talyaaniga ahayd ee Silvia Romano oo dhawaan la sii daayay ayaa bartilmaameed waxay u noqotay olole nacayb ah oo kaga imaanaya kooxaha midigta fog ee talyaaniga. gabadhan talyaaniga oo dib loogu celiyay toddobaadkii hore dalkeeda waxaa laga sii daayay 18 bilood oo ay shabaab ku haysteen Soomaaliya. Silvia Romano oo qaadatay diinta Islaamka muddadii loo haystay madax furashada ayaa qoyskeedu xaqiijiyeen in magaceeda loo bedelay Caaisha. waan islaamay waana ku faraxsanahay ay Silvia ku tiri dadkii isugu yimid markii ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Roma. waxaana qaar ka mid ah wargeysyada dalkaasi ay qoreen fariimahaasi mid ka duwan oo ay ku eedeynayaan gabadhaasi, waxaana ku jira meelaha weerarka looga qaaday wargeyska midigta ee loo yaqaano El Giornale. siyaasi ka soo jeeda gobolka Trevo ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in Romano ay tahay in la daldalo oo la dilo, qoraalkiisa oo markii dambe laga bixiyay Facebooka. Romano waxay ka shaqeynaysay si mutadawacnimo xero agoon oo ku taala koonfur bari ee dalka Kenya markii ay qabsadeen niman hubeysan bishii November 2018. kadibna waxaa si qarsoodi ah loogu soo gudbiyey xuduudda Soomaaliya, halkaas oo la rumaysan yahay in ay ka soo qafaasheen oo markaasi loo soo gudbiyey Al-Shabaab. waxay u shaqeynaysay hay-adda loo yaqaano African Millennium oo dhar iyo cunto siisa caruurta dalka Kenya. talyaaniga oo inta badan haysta madhabta Roman Catholic iyo kiniisadaha ayaa soo dhaweeyay tallaabada soo laabashada gabadhaasi. warbaahinta talyaaniga ayaa soo dhaweysay sii deynta gabadha, waxaana ay warbaahintu soo warisay in gabadhaasi lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo dhan 1 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ah. inkastoo dowladda talyaanigu ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintaasi, bal qiyaas argagixisidii oo soo laabatay oo lacag la siinayo ayuu yiri Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee leegada ee dalkaasi talyaaniga. taasi waxay ka mid ahayd waxyaabaha gabadhaas weerarka lagu soo qaaday ee ay ku qaadeen xisbiyada xag jira ee fog. waraysi ay jariirada La Repubblica ee dalka talyaaniga ka soo baxda la yeelatay afhayeenka Al-Shabaab waxa uu ku xaqiijiyay in lacag madax furasho ah laga bixiyay sii deynta gabadhaasi Silvia Romano, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu sheego cadadka lacagtaas inta ay tahay. qaybo ka mid ah lacagta waxaanu ku iibsanaynaa hub si aanu u sii kordhino jihaadka, inta kalena dadka ayaan wax ugu qabanaynaa, dugsiyo ayaan ku dhisi doonaa, cunto iyo dawo ayaan dadka ugu soo iibin doonaa, kadibna waa u qaybin doonaa. waxaana sidoo kale ku tababari doonaa ciidamada booliska oo amarka iyo kala dambeynta ka shaqeeya, ayuu yiri Cali Dheere. wuxuu sheegay in Silvia Romano ay si iskeeda u qaadatay diinta Islaamka. waxay aragtay oo ay soo taabatay xaqiiqda, waxayna ogaatay wax ka wanaagsan wixii ay hore u taqaanay, ayuu yiri. sirdoonka wararka laga helayo ayaa waxay sheegayaan in gabadha la kala wareegsaday oo lacag lagu badashay. goobta kala wareegistuna ay ka dhacday beer ku taala degmada Afgooye oo 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. arrinta kala wareega ayaa waxaa ka qayb qaatay saraakiil Turki ah, Soomaali iyo saraakiil Talyaani ah, iyadoo muddo ay qaadatay isku xirka hanaankaasi lagu kala wareegayo lacagta iyo gabadha. waxaana la sheegay in muddo toddobaadyo laga shaqeynayay arrintaasi. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in inkastoo arrintani aanay ka hadlin qoyskeeda, haddana la sheegay in gabadhaasi ay uur leedahay, iyadoo la leeyahay waxa ay leedahay uur 6 bilooda. hase yeeshee qoysku weli ma aanay xaqiijin arrintaas. wararka qaar waxa ay sheegayaan in Silvia ay
guursatay muddadii la haystay oo ay ku qasbeen kuwii ay gacanta ugu jirtay. dhanka kalena arrintan gabadha ku saabsan waxay dood ka dhex dhalisay xildhibaanada baarlamaanka dalka talyaaniga. siyaasiga alessandro bagano oo ka tirsan xisbiga midowda fog ee cunsuriga ah ee lenord ee waqooyiga ayaa waxa uu ku tilmaamay gabadhaasi argagixiso cusub, walow ay warkiisa islamarkiiba ka jawaabtay maria rosario oo ah madaxweyne ku-xigeenka aqalka hoose ee talyaaniga. bagano oo ka hadlayay ajendaha ku saabsan covid-19 oo looga doodaya ayaa sheegay in askari boolis oo cudurkaas u dhintay aan laga qayb gelin aaskiisa, balse sida uu yiri lasoo dhaweeya ayuu yiri argagixiso cusub oo soo laabatay. waxaa kadib arrintaasi cabasho ka muujiyey xildhibaano dhowr ah oo aqalka fadhiyey, waxayna ka dalbadeen ninkaasi inuu markaas joojiyo xildhibaanka ah. sidoo kale xildhibaan emmanuel piano oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee liberaalka ah ayaa warka bagano ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. gudoomiye ku-xigeenka oo warka ku noqday ayaa sheegay in durba joojisay warka bagano oo ay run tahay sida uu yiri. doodan ayaa waxay gaartay meel xasaasi ah markii dambe. ilaa haddana waxaa wargeysada dalka talyaaniga ay ka hadlayaan arrinta ku saabsan silvia. waa tahay daawadayaal, qaybo kale oo ka mid ah warbixinada noocaasna waxaanu kusoo qaadi doonaa barnaamijyadeena soo socda.